السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta maxaan rabaa inaan ka hadlo ilhaan cumar ayaan waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo. waxaan leeyahay ilhaan cumar congratulation ilhaan cumar. waxaa weeye ilhaan walaal, waxaan ku leeyahay hambalyo. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay guushaaduna waa guushayda, guusha ummadda Soomaaliyeed, guusha gabdhaha Soomaaliyeed, guusha dhalinyarada Soomaaliyeed, guusha islaamka, guusha dadka madow oo dhan, guusha Afrikaanka ayaan leeyahay. waxa weeye ilhaan cumar, halkana kaa salaamaya. waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed. waxay tahay guushaadu guusha hooyooyinka Soomaaliyeed. waxa weeye ilhaan cumar waa dadaashay, ilaahayna wuu kula garab galay, cadowgaagina waad ka guulaysatay. waxa weeye cadowga aan sheegayo ma aha dadka kula tartamayay. dadka kula tartamayay jagay u socdeen. waxa weeye cid kasta ha wadato, laakiin cidda ka dambeysay ee soo maxaan ku rahdaa wadatay oo kugu soo ciyaarsiinaysay ayaa ah dad cadow ah, dad aan jeclayn guushaada, dad aan jeclayn guusha islaamka, dad aan jeclayn guusha Soomaalida, dad aan jeclayn guusha dadka madow, dad aan jeclayn guusha Afrikaanka weeye baan oran karaa dadkaas. laakiin waxaa runtii aad ugu faraxsanaa guushaada dhalinyarada Soomaaliyeed first one, oo aad u tahay role model oo kugu dayanaya, oo wadadaad martay raba inay maraan, oo raba inay adduunka meel wanaagsan ka gaaraan, oo raba inay adduunka la jaan qaadaan, oo raba in ay meel wanaagsan gaaraan, kusoo baxaan waxbarashadooda iyo cilmigooda. marka waxaa weeye waxaad u tahay dhalinyarada role model. maasha allah, tabaaraka allah. waxaa kale ood role model u tahay gabdhaha Soomaaliyeed, hooyooyinka Soomaaliyeed waxaad u tahay role model. dadka islaamka ah waxaa u tahay, gabdhaha muslimiinta ah role model. waxaad role model u tahay gabdhaha Afrikaanka ah ayaad role model u tahay. maasha allah, maasha allah, maasha allah. il iyo ilaaca allaha kaa hayo. waxa way aad iyo aad baan kuugu hambalyeynayaa. waxaan ku leeyahay guuleyso, garabkaaga allaha galo. waxa weeye aad baan ugu faraxsanahay runtii. waxa weeye waxaan arkayay dad Soomaaliyeed oo badan oo caqli gaaban, caqli yar. waxay leeyihiin dadkaasu codka hala siiyo ninka madow codka hala siiyo. nin madow oo gaal ah bay leeyihiin codka hala siiyo. war ninkaasu ma ogtihiin inuu biri wax idin taraayo? ma ogtihiin inuu biri wax idin qabanayo? ma ogidin. cid og ma jirto. in biri maxaan ku dhahdaa laydinku soo basbaasaynayo, laydinku soo diraayo xataa ma ogidin. oo biri maxaan ku dhahdaa Soomaalida uu hog iyo halaag u badi doono ma aydin ogidin. marka qof aadan isku hubin baa qaarkiin waxay u ololeynayeen codka hala siiyo ninka madow. waxaan u jeeday wariyaal waaweyn, kuwa isku sheegaya oo xayaysiinaya, oo ninka madow xayaysiin u samaynaya, oo leh maxaan ku idhahdaa waa sida la yiriye ilhaan cumar maxaan ku idhahdaa Soomaalida waxba umay qabaninoo bad kalay gashay. waa sida la yiriye ilhaan cumar maxaan ku idhahdaa wixii laga rabay inay dadka Soomaalida u qabato umay qabanin. waa xayaysiis weyn ayay u samaynayeen. ummadda Soomaaliyeed ay ka horkeenayeen ilhaan, ay ku diraayeen oo maxaan ku idhahdaa ay rabeen inay maskaxdooda bedelaan
in ay focuska saaraan maxaan ku idhahdaa ilhaam sidii maxaan ku idhahdaa looga badin lahaa. war heedha haya yaab annagaa soo aragna. war heedha dhaqankan xaguu ka yimi. waa yaabanahay dhaqankan xaguu ka yimi. war mar walba qofkaaga Soomaaliga ah ayaa ku xiga. mar walba qofka Soomaaliga ah ayaa ku xiga. isagaa wax kuu ah. isagaad wax ku tahay. isagaa dhiig kula wadaaga. isagaad isku dal tihiin. isagaad isku deegaan tihiin. isagaad isku diin tihiin. isagaa kula wadaaga magaca Soomaali. marka magaca Soomaali proud ku noqda. gabadhiinana proud ku noqda. gabadhiina magaca Soomaaliga matalaysa proud ku noqda. Ilhaan Cumar magaca Soomaaliga ayay kor u qaaday ayaan dhihi karaa anigu. caqligayga fikirkayga waxa way haddaan ku cabiro 30 sanaan burbursanayn. magaceenu heerku gaaray maanta iyadaana gaarsiisay. yaa waddankeenu waxaa loo yaqaanay bahala galeen. annagana waxaa naloo yaqaanay dhurwaaye iyo bahala wax cuna iyo waraabayaal. marka Ilhaam waa naagta magaceena kor u qaaday. waa gabadha kor u qaaday magaceena. waa gabadha ilaa iyo aqalka sare ee adduunka aan oran kara adduunka laga xukumo na gaarsiisay. magaceena gaarsiisay. waa gabadha xijaabkeeda ku fariisatay maxaan ku idhahdaa aqalka cadda oo ka diiday in ay iska qaado xijaabkeeda. waa gabadha magaceena kor u qaado. Ilhaan ilaahay magacaaga kor ha u qaado. meesha higsanaysidna ilaahay ha ku gaarsiiyo baan ku oran lahaa. hore u soco. hore u soco. ha u joojin dadka caqliga gaaban. dadka xaasidnimada iyo xiqdigu ka buuxo. dadka raba inay gabdhaha hoos u dhigaan ha u joojinin. reexa marka waxay ku maamaan jireen tukulish timir gaari waaye kharaar. waa kugu kharaarayaan. may wax bartaan sidaada. may heerkaas iyo maxaan ku idhaahdaa iyo hamiga aad adiga leedahay yeeshaan. may gaaraan heerkaad gaadhay. may gaaraan meeshaad tiigsanaysid. may tiigsadaan meeshaad tiigsanaysid. maxay lugaha kuu qabsanayaan. maxay kuu caayayaan. dad aan dhaqan lahayn baa ku soo badanaya ummadda Soomaaliyeed 30 sano ee la burburay. waan sheegay dhaqan ahaan ayaan u burburnay. even dhaqan ahaan ayaan u burburnaa haddaan Soomaali nahay. hore waan u sheegay fiidiyoyadayda hore way ku jirtaa. sababtoo ah waagii hore ma jirin nin raga oo Soomaali oo gabar caayay. nin raga oo Soomaaliya oo guriga iyo gogasha reeraha ka sheekaynaya iyo sariirahooda ma jirin. tan kale dhaqankeenu wuu isbedelay. waxaanu ahayn dad isu hiiliya. maalintay kharaadhahay waxaanu ahayn dad isu hiiliya. isgarab istaaga. aan maxaan ku idhaahdaa midooba markay arkaan cid kale inay soo dhex gashay. midoobo mid noqda tugada noqda ayaan ahayn. maanta maxaa dhacay. dhaqankaas waxaa moodaa inuu meesha kasii baxaayo. waxaan leeyahay ilaahay oo rabbi raxmaano dhaqanka hanaga dhamayn oo hanaga suulinin yaa rabbi. dhexdeena ha ka suulinin. sababtoo waa inta yar oo isku kaaya haysa inaan isu hiilino maalintay dhiida taagan tahay. yaa marka Soomaaliya maalintay dhiida taaganta waan isu hiilin jirnay dhaqankeeni hore. maalinta cid kale na soo dhex gasho mid baan noqon jirnay. waa dhaqankeeni hore. dhaqankeena aan ku dheganaano. aan ku dheganaano dhaqankeena. ummad waliba oo ilaahay abuuray dhaqan wanaagsan iyo dhaqan xunba way leedahay. even dhaqamadooda xunxun way ku faanaan. ummadaha ilaahay dhaqamadooda xunxun xataa way ku faanaan. dhaqamada waddankaaga burburinaya oo maxaan ku dhadaa shakhsiyan adiga wax kuu dhimaaya waa laga taga. laakiin dhaqamada waxay ku faanaan oo kale ummadaha aan sheegay waxa way hadday tahay dhaqankooda uu yahay inay dhiig cabaan
wuxuu u yahay wax dhaqan ah way ku faanaa waxay ku leeyihiin waa dhaqankeena waa cabnaa anaga way ku faanaan laakiin actionka weey dhaqanka actionka ah kaasu laakiin dhaqanka maxaan ku iraahdaa ishak xun oo wadankaaga burburinaya ama dadnimadaada wax u dhimaaya ama maxaan ku iraahdaa isku dirnimada keenaya ma wanaagsana kaas marka Soomaalidana waxa isku dirka iyo ruufyaanimada waa laga badshay inkastoo aan leenahay bilaadan kasta uu leeyahay qof ruufyaan ah oo dadka ummadda isku dira laakiin waana laga badiyay even ragga waa laga badiyay oo ceeb ah nin dadka isku dira hadda waxa soo baxay niman dadka isku diraay guriyaha galaya sariiraha ka sheekaynaya caruurta gabadha caayay famligeed ireeraheeda iyo u dhacay sariirteedii caayay heeb عليك ما fiicna waxaas ma fiicna waa dhaqan xumo waa dadnimo xumo waa dulinimo it's not good ma fiicna waxaas xishooda wax isku fala tan kale ilaahay ka baqa ummad muslimaan nahay yaa ku banay maalin kasta inaad dad caydid yaa ku banay maalin kasta inaad qabiil caydid yaa waxaad moodaa dadkan social media ku jira in malaa'igtii xumaanta iyo wanaaga qoraysa ee qalinka ka dulqaadayba inaan baba laga qorayn xumaan inaanba maxaan ku iraahdaa ishag dambiba loo qorayn oo inaanba aakhiraba waxba la su'aalayn baad moodaa say u dhaqmaayaan aakhiraba way iloobeen faca iska celi bas social media waxay usoo galaan faca iska celi qaarna waxaasayba fiyuus ku raadiyaan inay ummad islaameed caayaan inay maalin walba qabiil ku dheganaadaan inay maalin walba reer islaameed sheekh shariif leh ka laalaadaan inay dumar caayaan inay reeraha u dhacaan iyo sariirahooda shame xishooda isku xishooda heeb waxaas ma fiicna tan kale waxaa u jeedaa aniga dadka social mediaha soo gala qaybtood waxaad moodaa like inay blackmail ay ku samaynayaan dadka qaar si lacag loo siiyo inay blackmail ku samaynayaan waa ku caaya haddii kale lacag isii war waxaas ka weynaada waxaas wax fiican ma aha caay qof ay meel ka dulasho ay ka galaysaa ma jirto caay cid aad wax uga qaadaysa ma jirto caay taariikh ay samaynayso oo cusub ma jirto taariikhda waa wax dhacay horay u dhacay oo saxiix ah oo la og yahay waxna kama bedeli kartid waxna kuma dari kartid marka cidla ka daalaysa cidla dadka ka caayaysaan war isku xishooda dhaqanka hagaajiya ragow isku xishooda yaa waxa maqli jiray naagi dhaantay baa maqli jiray hadhow baa naagaha ay caayi doonaan ragga qaarkood oo u caaytamaya sidii dhoocilihii yaryaraa 6 year ma aragta 8 year 7 year 5 year oo kale gabdhaha yaryariska ah ma aragta dhegta inay wax iskugu sheegaan maanta dhan shoq dhahaan sidii oo kale rag u dhaqmaayaan arkay ay baba ani I think dadkan ma fiyooba dad xanuunsan ayaa social media ku soo badanay dad fiyow qabiilo maalin walba kuma taagnaan lahayn qabiilo maalin walba ma caayi lahayn shakhsiyaad islaameed dad islaameed ma caayi lahayn aakhiradooda u baqi lahaayeen way xishoon lahaayeen in yarab hayo yar haday ku jirto way xishoon lahaayeen dad fiyow yihiin I think it's not normal dadkan social media soo galay maxaan ku radaa kulligood ma caafimaad qabaan something wrong ayaa khalad ka ah ka qaldan qofka dadka caayayo maanta dad ku solan oo dad ku taagan marka waxa weeye Ilhaan Cumar waxaan leeyahay guuleyso shame ayaan leeyahay dadkii ku dhaganaa ee cadowga u soo raacayay yaa maxaan ku iraahdaa cadowga u shaqeynayay maybe xoolaha lagu siiyay xoogaaga lagu siiyay luflufka ah shame xoogaa luflufka ah lagu siiyay maybe I think xoogaa luflufa lagu siiyay markaas la yiri gabadha ninka u sameeya maxaan ku iraahdaa xayaysiin u sameeya la yiri
ay xayeysiin u samaynayeen waana guulaysatay ilaahay wuu guuleeyey maasha allah tabaaraka allah hadda waa kaasa ceeboobe dadkii waa ceeboobeen yaan la dooranine yaan loogu shubine bababababa war hee dhahaya soomaaliya yaa reebaadiye ma dhihi kare reebaadiyaha sharafay leeyihiine waa dadkaan asal ka nimo kasoo askunaye qof walba baadiyu ka yimi asale ee jaahilnimaa haysa dadka qaar war inteed joogtaa wey ma isweydiisa inteed joogtaa gabadhaan maraykan bay joogtaa gabadhaan waa madax qof kastay madax u tahay cid kasta oo codkeeda siisay madax u tahay wadan maxaan ku rahdaa khaniisiyiinta maxaan ku rahdaa ay aaminsan tahay waa kan war heedhe wadamadan khaniisku wuu sharciyeysan yahay haddaad wax yar ka sheegtana cirkaa lagula aadaya maxaan ku irahdaa ishag dadkan aad adiga ku doortay bayna ka mid yihiin dadkan adiga aad madaxda u tahayna ka mid yihiin maxay samayn kadhaa gabadhi marka waxba ma samayn karto ma diidi karto sharci baa qabanaya meesha dhul muslin ma aha waa dhul gaalo dhaqan soomaali ma laha meeshaan dhaqan muslin ma leh sharci muslim kama shaqeeyo marka inaad saas u fahantaana fiican soomaaliye intaydan iska baq oranin iska qaaqlaynin inaad saas u fahantaana fiican gabadhan waxay madax u tahay waxaasoo dhan jini cirfid waxaad doontid bacaabude waxay u tahay madax mid ay tisay madax u tahay kristan bay u tahay yuhuud bay u tahay khaniis bay u tahay qabxad bay u tahay cid kastay u tahay soomaali bay u tahay muslim bay u tahay kulli bay u tahay madow bay u tahay afrikaan bay u tahay cid kastay u tahay madax u tahay marka soomaaliye muslim uma aha gabadhan kaliya madax inaad saas u fahantaana fiican sharciyada wadamadan aan nimina cid ka boodi karto ma jirto yaa dooranaya berri way ku fayl garoobaysaa waxaa le cunsuri baa tahay dadka banaanka jooga xataa la hadli karin oo waxba dhihi karin adiga waxaad sheegaysaa qof madax ahe ooba matalayse car cunsuriye oo ku cay wixii uu yahay qaniiska ku cay kuma caayi kartid waa lagu xiraa xabsiyaa lagu geynaya wixii hadda waxaa laga dhigay sharci wixii waxaa laga dhigay xumaa sharci hadeer waad og tihiin intiinaan yurub joogto ama maraykan joogto inaad waxba dhihi karin oo lagu xiraayo lagula haaday xabsiga lagu tuuraayo marka gabadhan waxba kama bedeli karto dadkan ay u timi iyadoo qaxooti ah oo muslin ah dadkay u timi oo madow waxaa weeye ma ka bedeli karto waxay sharciyadooda ay dhigtaan wax kama bedeli karto saa inaa u fahantiina fiican jaahilnimada joojiya soomaaliya gabadhan ma aha haddii ay dadkaas la xafladaysa ma aha in ay iyadu taageersan tahay ina iyadu maxaan ku irahdaa ishag ay rabto ma aha ama iyadu inay ka tirsan tahay ma aha waa hooyo sharaf lo caruur loo reer leh marka xishooda soomaaliya wax isku fala weliba ragga caytamayo xishooda wax isku fala xishooda ilaahayna ka baqa qalinkii garbaha idinka saarnaa labadii malag ee qoraysa qalinkood miyaa laydinka dulqaado waa maya ilaahay ka baqa aakhiro walla waxbaa idin sugaya intiinaas caytanta oo qabiilada maalin walba ku taagan oo islaamka caayaya ibtilo aan la aqoonina ku dhici doonto aakhirka because sheekh iyo shariif iyo maxaan ku radaa mid ilaahay jecel yahayba dadku waa ku wada jiraan kulli marka waad caayaysaa marka qasab inay kugu dhacaysa inkaartooda dadkaas waa qasab maalin unbay ku heli hoostaadaad ka helaysaa ma fiicna cayda ma fiicna maxaan ku rahdaa sharafta in layska qaado sharaftiina ilaashada isku xishooda dad waaweyn baa tihiin dad waaweyn dad yaryar ma tihiin aabbayaal baa ku jira waxaa ku jira dad waaweyn ooba kasii waaweyn oo awooyaal noqon kara marka it's not good waxaas joojiya dhaqan xumada joojiya dembiga
joojiya maxaan ku idhahdaa dhaqan xumada aad faafinaysaan ilmaha yaryara waxaas tusaysaan iyo dadka joojiya joojiya nacaybka joojiya qabiil cayga joojiya maxaan ku idhahdaa shaqsi cayga joojiya madax cayga joojiya shaqsi ataaga joojiya sharafka dhaca aa ku samaynaysaan dadka adinkaa sharaftiinu ku dhacaysaa wallaahi oo bilaahi utallaahi sharaf male qof caaytamaayo 24 sac something wrong qofkaas aan dhihi karaa qof yow ma aha allah caafiyaan leeyahay aniga qof caadi ma aha qofkaas ilaahay ha caafiyo baan leeyahay ilhaan cumarna waxaan leeyahay guuleyso garabkaaga allaha galo meeshaa jecesha allaha ku gaarsiiyo aad higsanaysid qof kastoo soomaaliyana waxaan leeyahay oo tartamaya oo wax noqonaya garab siiya garab istaaga soomaalinimadu ha idin deeqdo soomaalinimadaa wax ku tihiin soomaaligaad wax ku tahay soomaaligaa kula dhashay soomaaligaa maxaan ku idhahdaa sharaftiisa waa sharaftaada soomaaliga dhibtiisu waa dhibtaada soomaalinimada barowd ku haw ku kalsoonow soomaalinimadaada jeclow soomaalinimada because soomaali baa tahay you are Somali proud ku noqo soomaalinimadaada qofka walaalkaa garab istaaga soomaaliga ah isaga hadduu soo baxo waa adoo soo baxayo kale waa adiga sharaftaadi waa magacaagiiba wataa ogow because you are Somali magacaagiiba wataa haye hadduu xumaan uu sameyno waa xumaantaada hadduu wanaag sameyno wanaagaaga weeye taas ogaada magac hadduu kuu soo jiido waa magacii adigoo magacii leh oo kale ka dhigan tahay ogow farxaddiisa waa farxaddaada heerku gaari waa heer adiga gaadhoo kale ya because wanaag iyo magac baa laguu soo jiiday ku farax ha ka xumaanin walaalkaa hoos ha u dhigin walaalkaa majaha ha qabanin lugaha ha qabanin dhulka ha soo dhigin hoos ha u soo celinin garab sii ku bushgaree kor ilaa uu aado hami geli qalbiga u dhis niyadda u dhis kasii badi dheh gow dheh hore u soco dheh wax xunba hore u soco isku dhahdaan reer social media waxa xun marka isqaawiyaan dadku hore u soco baa leedihin qofaa gaalooba hore u soco khaniis baa arkaysin hore u soco baa leedihin maa qofka wanaagsan hore u soco dhahdaan ma dhahdaan maxaa uga xumaanaysaan subxaan allah ilaahay ka baqa haaf rabbakum soomaaliye ilaahay ka cabsada walaalkaa garab sii garo walaalkaa garab ka dhigo garo walaalkaa gacal ka dhigo qofka soomaaliga waa walaalka magaciisa waa magacaaga heerku gaaray waa adoo gaaray oo kale ku faraxsano haddaa rabtid soo ma aha xataa diiniyan ma ogola diinteenna inaa qofka jalas wuu noqon karaa wax wanaagsan qofkaas uu sameeye jalas ka noqo samee wuxu uu sameeyey ama kasii wanaagsan samee laakiin ha xasdin ha ku fakerin inaa hoos usoo dhigtid ha ku fakerin meeshuu jooga inuu kasoo dhaco inuu maxaan ku idhaahdaa fayl garooba ha jeclaysanin xaraam lama ogola taas lama ogola diiniyan lama ogola xaasid janno ma galo qofka caloosha waxa xun ku haysta is not good qalbigaaga saafi ka dhig baa lagu yiri haddaa muslim tahay marka walaashin u hambalyaaya ha caayina famligeeda ha caayina caruurteeda ha caayina shakhsiyadeeda meel ha uga dhacina aniga waxaan oran karaa shakhsiyadeed meel horta maba uga dhici kadhaano qofka wax caayaya isaga shakhsiyadiisa meel uga dhacaya isaga ceeb soo gaaraysa isaga ceebaysan qofka caaytamaya ee qabiilka caayna ama dadka caayaya ee madaxda caayaya isaga ceebaysan waxaan salaamayaa waxaan idin leeyahay Soomaaliya xaasnimada iska dhaafno guul ilhaam cumar mabruuk ilhaam cumar waan ku leeyahay walaashay gacalo waan salaamayaa Soomaaliya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.